wararka ka imaanaya puntland ayaa sheegaya in 2 askari oo ka tirsan ciidamada puntland ay ku dhinteen, askari kalena uu ku dhaawacmay saaka qarax miino oo kula qarxay aagga buuraleyda galgala. maamulka puntland kama hadlin shilkan, balse sarkaal ka tirsan ciidamada puntland oo magaciisa ka gaabsaday ayaa v o eda u xaqiijiyey dhimashada iyo dhaawac soo gaaray askartaasi. deegaanka galgala ayaa waxaa ku sugan ciidamo tiro badan oo ka tirsan puntland oo halkaasi loo geeyey inay kula dagaalamaan maleeshiya al-shabaab ka tirsan ee buuraleydaasi ku sugan. maraykanka ayaa dalkiisa ka celinaya 12 arday loo tababarayay militariga sacuudiga, kuwaasi oo lagu eedeeyey xiriir xagjirnimo ah iyo weliba eedo kale kadib baaritaan lagu sameeyey dil oo askari sacuudiga ah ka geystay gobolka Florida ee Maraykanka. Maxamed al-Shamrani oo dalka Maraykanka u joogay tababar la siinayay askar sacuudiyaan ah ayaa bishii December ee sanadkii hore rasaas uu ku furay fasal ku yaala xarunta ciidamada cirka ee Pensacola ee Florida. wuxuu ku dilay 3 askari waxaana uu ku dhaawacay ilaa 8 qof intii aysan bulaysku isaga toogan. inkastoo 12 askari ee tababarka ku jiray aan lagu helin inay gacan siinayeen al-Shamrani, haddana qaarkood ayaa lagu helay inay xiriir la leeyihiin dhaqdhaqaaqyo xagjir ah, sida ay ku waramayso warbaahinta CNN. baaritaankan oo ay samaysay hay-adda FBI-da Maraykanka ayaa lagu ogaaday in qaar ka mid ah ciidamada tababarku u socday aysan soo sheegin dabeecadaha qallafsan ee al-Shamrani ka hor inta uusan weerarkaasi fulin, sida ay ku waramayso warbaahinta Washington Post.